kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadeenii aynu ku baran jirnay shaqalada iyo shiibanayaasha. casharkiinana wuxuu ka mid noqon doonaa qayb ka mid ah casharadii aan hore usoo qaadanay, waxayna ku baran doonaa shaqalo iyo markaasi shiibanayaal wada socda. hadaba casharkiinana wuxuu ka koobnaan doonaa san hore usoo sheegay shaqalo iyo markaasi shiibanayaal, waxaana inoola socon doonaa sawirro ku habboon iyo markaasi tusaalooyin. waxaan idin leenahay dhammaantiinba ka faa'iidaysi habboon. haddii aan soo qaato tusaalaha ugu horeeya, la, le, li, lo, lo. tusaalaha koowaad haddaan soo qaadano la, haddii aan ku darno markaasi fa maxay noqonaysaa? laf. le, haddii aan ku darno markaasi ga maxay noqonaysaa? leg. li, haddii aan ku darno sa maxay noqonaysaa? lis. lo, saasay ku tahay eer dhammaystiran, lo'da. lu, haddii aan ku daro ga maxay noqonaysaa? lug. haddii aan soo qaadano shaqalka dheer, laa, lee, lii, loo, luu. tusaalaha koowaad haddaynu soo qaadano laa, haddii aynu ku darno markaasi sha maxay noqonaysaa? laash. lee, haddii aynu ku darno ba maxay noqonaysaa? leeb, sida leeb iyo qaanso. lii, haddaynu ku darno na maxay noqonaysaa? liin, sida liin macaan ama liin bambeelo oo kale. loo, haddaynu la ku darno maxay noqonaysaa? lool, sida dhigaha iyo loolka. marka aqal soomaaliga lagu dhisaa dhiga iyo lool. luu, haddii aynu la kale ku darno maxay noqonaysaa? luul. luul waa magac soomaali. ma, me, mi, mo, mu. tusaalaha koowaad haddaynu soo qaadano ma oo aynu saa ku darno maxay noqonaysaa? mas. ereyga ku xiga tusaale uma hayno. mi, haddaynu ku darno markaasi la maxay noqonaysaa? mil, marka wax la isku milayo. mo uma hayno erey tusaalaha. mu, haddaynu ku darno ga maxay noqonaysaa? mug. shaqalka dheer haddaynu soo qaadano ma, mee, mii, moo, muu. tusaalaha koowaad haddaynu soo qaadano ma, haddii lagu daro la maxay noqonaysaa? maal. marka maalku waa adduunyo ama xoolo uu qofku haysto ayaa la odhanayaa. mee, haddii la lagu daro maxay noqonaysaa? meel. mii, haddii aynu ku darno ga maxay noqonaysaa? miig, waa nooc ka mid a diyaaradaha. moo, haddii aynu ku darno ya iyo e maxay noqonaysaa? mooye, waa tib iyo mooye. mooyaa waxa lagu tunto oo kale. muu, haddii aynu ku darno markaasi sa maxay noqonaysaa? muus. na, ne, ni, no, nu.
tusaalaha koowaad haddaynu soo qaadano na oo aynu ku darno la maxay noqonaysaa nal waa nalka la shito ne tusaale uma hayno ni haddaynu ku darno na kale maxay noqonaysaa nin no uma hayno no haddaynu ku darno markaasi sa maxay noqonaysaa nus shaqa kale waxaa ka mid ah na ne ni no nu tusaale haddaynu soo qaadano na oo aynu ra ku darno maxay noqonaysaa naar ne haddaynu ku darno fa maxay noqonaysaa neef ni haddaynu ku darno sa maxay noqonaysaa niis no haddaynu ku darno la maxay noqonaysaa nool haddaynu kala kusii darno noole nu maxay noqonaysaa haddaynu ku darno ra nuur bay noqonaysaa waxaan filayaa inaynu soo gaadhnay dhammaadkii cashirkeena intaynu ku kulmayno cashar noocan oo kalena waxaan idinkaga teginay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe taabo lana soco casharkan ku xiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.